بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد بان ugu mahadcelinayaa The Daily Somalia gogashan iyo madashan ay noo qabteen. Waxaan salaamayaa madaxweyne Ilyas Cusmaan Lugotor. Waa dhageystay warkaagii qiimaha badnaa iyo warbixintaadii aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan salaamayaa Dr. Cali Xaaji iyo Dr. Guuleed oo odayaal rug cadaa ah. Warku isku meel buu u socdaa. Anigu qodobka koowaad aan oranayo aan rabo in badan inaad maqasheen dhegihiinuna maaragtay ay aad u dareensan yihiin waxa weeye dadka aan la dirinayno waa khawaarijna nebiga u bixiyay calayhi salaatu wasalaam. Muslimiintii bay ku baxeen, dhiigoodii iyo sharaftoodii iyo cirdigoodii bannaysteen. xadiis waxaa jira nebigu uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, hum sharu lkhalqi waalkhaliiqa. dadka ilaahay uu abuuray iyo ilaahay subxaanahu watacaala khalqigiisa iyaga ugu shar badan. tuuba liman qatalahum aw qataluuhu. waxaa janno iska leh iyo farxad ciddii disho ama ay dilaan. xadiis gadaashii nabigu wuxuu leeyahay haddaan soo gaaro calayhi salaatu wasalaam waxaan ula diriri doonaa sidii caad ama reer caad oo kale loo baabiyey oo loo halaagay baan u halaagi doonaa. imaamu axmed raximahullah, axmed ibnu xambal oo imaam weyn ah loona tiiriyo madhabka xambaliyada, imaam ahlusunna waljamaacana la yidhaahdo, oo ka mida fuqahada muslimiinta ugu waaweyn ahlulxadiidna ahaa, wuxuu yidhi firaq badan, firaqu daalla baa ahlusunna waljamaaca ku baxay oo ka baxay, waana tiro badan yihiin. waxa ugu shar badan buu yidhi khawaarijta, mana garanayo cid dhulka korkiisa saaran oo ka shar badan. imaam axmed oo sabankii ay soo baxeen inooga dhowaa in badanna la caashiray saasuu leeyahay. marka isagama sheekaynayno waxay soomaali yeeleen iyo waxay reer puntland yeeleen iyo waxay innagana yeeleen. anugu sheekh cabdulqaadir raximahullah markuu dhimanayay dalkan joogay, boosasaan joogay markaa garawaan mid gacanteeda wax kaga aasay, documentary dheerna waan ka sameeyey qaabkuu dhacay dalkiisii iyo maaragtay arrimihii dhacay. walaalayaal, marka waxaan la dirinaynaa dad caqiidadii ay ka lunsan tahay oo shubahaad ku dhacay oo aan waxba inoo reebaynin, aana ina kala jeclayn haddaan nahay culummo iyo caamo iyo dowlad iyo shacab iyo rag iyo dumar iyo maaragtay masjid iyo xafiis. marka horta taa inaan u midowno oo maaragtay ay inaga dhaadhacdo caqiida ahaan waa midda kale. dagaalkan kula jirno waa bannaan yahay oo waa dagaal jihaada oo xaqa oo inagu janno ku galayno. dowrka culummada ayaana caddaysay halkaa. culummadii anu waxaan ka mid ahaa soomaaliyeed oo marar badan ka hadlay. dhowaan shir baa ka dhacay xamar, 2 shir oo culummada loogu yeeray. culummada soomaaliya fatwa ay soo saareen in nimankaasi ay yihiin niman khawaarij ah, shareecadana baalmarsan, lana diriro lana iska dhiciyo. waa caddahay culummada soomaaliyeed meelay joogan. kuwa puntlandna saasoo kale yidhaahdeen. qodobka marka ugu horeeya horta dowladda puntland oo hadda madaxweynuhu nagala jooga aad baan ugu hambalyaynaynaa dagaalka ay bilaabeen, dagaalka ay galeen, waanu ku garab taagannahay. waana sheegnay oo bayaankayagii aan minnesota ku qabanay 2 beri ka hor waa ku caddaynay. waa dagaal loo baahnaa. waa idinku dhiiragelinaynaa, waana idinku garab taagannahay. hadallo badan oo qiimo badan baa la sheegay oo kuwaan oranaya u eg. maalin dhoweed waxaan akhriyay amison waa ciidanka ugu badnaa nabad ilaalina oo dal joogay, uguna tirada badnaa, uguna mushaharka badnaa, uguna dhimashada badnaa. laakiin haddaan qiimayno waxtarkoodu isuma dhigmaan lacagta ku baxday iyo muddaday joogeen iyo sida ay yihiin. marka taarikhdu waxay sijali doontaa haddii ciidamada daacish dowladda puntland ka guulaysato in soomaaliya iyo geeska africa iyo intaba ay taariikh cusub ay qoranto in ciidamo soomaaliyeed oo welibana deegaan kooban oo maaragtay maamul goboleed ah ay tallaabada intaas qaadeen oo nimankaas daacish oo internationalka ay ka guulaysteen. marka dowladda waan ku garab taagannahay, waana ku ammaanaynaa. qodobka ii labeeya dowrka culummada, madaxweynuhuna waa sheegay, labada walaal oo maaragtay martida halkan ku ana waa sheegeen, anna waa adkaynayaa.
dowrka culimmadu mana qarsoonayn haddana ma qarsoona culimmadu dowrkoodu waa inay qaataan waana inay helaan ardayadii iyo fursaddii ay dowrkooda ku qaadan lahaayeen arrintaasi runtii waxay noqon kartaa arrin tala ah dowrkooda inay si togan culimmada u qaataan aysan cidna marti uga noqon dowladduna arrintaas inay facilitate garayso oo dagaalkan dagaal fikriya waa inuu garab socdaa oo hor socdaa oo gadaal socdaa nimankan fikir bay inugula dirirayaan marka fikirkana dee culummada kula diriri karta xataa midka lacagta bixinaya hadalka iyagina waa ku jirtay inay culummadu fatwo ka soo saaraan midka qarinaya ama baqaya inay culummadu fatwo ka soo saaraan dadka iimaankooda iyo macnawiyaadkooda kor loo qaado dadkan dadka macnawiyaadkay ka dilaan iimaankay ka dilaan marna tashuush iyo shubahaad diin u eg bay ku furaan marna waa cabsi geliyaan taas waa qodob qodobka labaad oo taladayda waxa weeye in sharci ciqaabeed adag laga soo saaro hadduu jirana la fuliyo dadka al-shabaab lacagta siinaya oo bari jooga ama puntland meel ka mida jooga arrintaasi waa arrin aad iyo aad u muhiima dowladdu inay jarto dhuunta lacagta ah ama channelka wax loo marinayo inay dowladdu jarto si oo xooga loogu talagalo hay-ad dhan loo xilsaaro wadamada argixisada la dirira waxay leeyihiin hay-ada arrintaa qaabilsan waadna ka dharagsantihiin puntland isku tashato ma xuma wayna tashatay laakiin hadalkii walaal cali waa xoojinayaa madaxweynahana kiisina waa xoojinayaa dowladda soomaaliya ee federaalka ah waa ku eedeysan tahay siday ula tacaamushay howlgalka puntland ka socda anuu horena waa u sheegay meelo badanna waa ka sheegay bayaankana waa ka sheegay kamana qarinayno dowladda soomaaliya waa ku fashilantay waana ku ceebowday dowladdii federaalka ahayd dalka u dhaaratay iyadoo daacishi argixisa lala dirirayo shaqadooda qayb ka mida la hayo inay weli mowqifkii siyaasadda ee puntland ay ku kala duwanaayeen ay taagan yihiin gar ma aha caqlina ma aha sharcina ma aha cilmina ma aha marka waxaan leenahay godka ka soo baxa a ku jirtaan ma dhuuman kartaan ummadda soomaaliyeedna arrintaas hadde waa ku maxkamadeynaysaa arrin lagu cafinayana ma aha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ciddii kaloo taladu ka go'do ma aha arrin ay uga furan tahay excuse ama cudurdaar cidna ama culamo ha noqoto ama dowlad ama shacab dagaalka lagu jiro waa inaan gacmaha isqabsanaa cidda wadda iyo cidda guusha keenaysa muhiim ah laakiin waxaa muhiima inaan ka guulaysan argagixisada aan ina daynayna marka dowladda soomaaliya waa eedeysan tahay waana ku ceebaysan tahay wixii ay xaq u leedahay puntland oo dagaalkaas uu xaq u leeyahay shuruud la-aan inay ku fuliso wey anuna waa sheegay maalintii dagaalku bilowday waxay ahayd in hay-adaha ay khusayso ama ha noqoto wasiirada ama ciidamada inay garow ka degaan bay ahayd bayaankaygiina waa ku jirta taa marka waa arrin aad iyo aad iyo aad u muhiima waxaa jira laba qodob aan ku gabagabaynayo qodobka aan uga baxayo aan ku gabagabaynayo gabagabadan jooga iga raallahu aadan madaxweyne dagaalkan waa dagaal caalami ah 2007 etoobiyaanku markay soomaaliya soo galeen oo ogolaansho dowlad ku soo galeen ayaa al-shabaab ay inagu soo baxeen ilaa haddana waa innagaa la tacaalayna dowladda soomaaliya waxay rabtaa inay etoobiya dekad siiso haddii arrintaasi dhacdo daacish waa inagu sii badanaysaa al-shabaabna waa inagu sii xoogeysanayaa waxaan ku talinayaa marka oromadii etoobiyaan kusoo qulqulaya puntland in dowladdu ay siyaasad cad ka yeelato ayna joojiso kuwa joogana ay sharci ku joogaan cid kalena aysan soo gelin mana naqaano inay daacish yihiin iyo inay etoobiyaan yihiin iyo waxa ay yihiin dowladda soomaaliyana inaad mowqif cad ka yeelataan idinkoo gobol ah badda loo socdo waa badda cas tusaalahan idin siinaya waxa weeye haddii hadda etoobiyaan baddaa soo galaan oo ciidamo keenaan culimmadu waxay oo lala diriro culimmadu waxay odhanayaan etoobiyaanka iska dhiciye oo waa xaqin la iska dhiciyo haddii saa la yidhaahdo al-shabaab iyo daacish baan ciidamo u samaynaynaa iyagaa guulaysanaya ciidamadaasna iyagaa aadayaan dad badan bayna helayaan say taasi u dhicinin anoo soo koobaya badda soomaaliya la raba in la bixiyo oo bayska ah sax ma aha hor istaaga daacishna iyaysa guulaysan ugu dambayntii madaxweyne abuur oo hala sameeyo gole forum ah oo dadka eliidka ah oo reer puntland ay ku wada hadlaan si hoose si ay fikirkooda iyo aqoontooda iyo waxtarkooda iyo dhaqaalahooda ay idinkugu biiriyaan abuura forum iyo gole hadduu jirana nala wadaag hadduuse jirinna dad badan oo wax idin tari karaa jira ama ha noqoto arrimaha dibadda iyo advocacy inay sameeyaan ama dhaqaale ha noqoto ama tala idinka maqan ha noqoto laanna idinku meydaanka ku jirtaan
xabadii baad isu dhigteen dad badan oo waxaa jira laga yaabo inay idinka fog yihiin oo maskaxdoodu xoogaa ay degan tahay oo habeenkii ay xoogaa hurdo helaan marka forum ha la abuuro saasaan ku talinayaa aad iyo aad baad umahadsantihiin mar kale ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga guuleeyo nimankaa daacish gacan naga siiyo ciidamada intii dhimatay ilaahay inuu shahaado ka dhigo ehelkoodiina uu samir iyo iimaan siiyo آمين ilaahayna subxaana watacaala dalkeenna uu ka saaro shabaab iyo daacish iyo khawaarij iyo wixii lamida maantana gacantaa loo qaaday inuu guusha ciidamada iyo puntland siiyo iyo meel walba lagula dirirayo dalkeennana ilaahay amni iyo istiqraar siiyo wajazaakum allahu khayr wasalaamu allahu calaykum ma og tahay in internetka shirkadda golis ay kuu keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa go'in internetku shirkadda golis waxa ay diyaar kula tahay inay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba